iyo meelaha loo soo maray saada cali warsame waxaa dilay shirkadda Dahabshiil. maxaad ka ogtahay taariikhda madowga Daahir Calasow dhibaatooyinkii uu u geystay Soomaalida iyo sidii uu u baabiyay shirkadda Dahabshiil una qasaartay balaayiin doolar Daahir Calasow ayaa ka faa'iideystay dirir u dhaxaysay fanaanada weyn ee Saada Cali iyo shirkadda weyn ee Dahabshiil Group isla markaasina ku soo marmarsiyooday Saada Cali dhimashadeedii oo sheegay inuu Dahabshiil dilkaasi ka dambeeyay kadib markii ay u qaaday hees Dahabshiil Group isla markaasina ay bulshada Somaliyeed ugu sheegaysay in Dahabshiil Group uu yahay dhibaato ku soo kordhay geyga Soomaalida gaar ahaan koonfurta Soomaaliya isla markaasina uu hubeeyo muqdisho kuwa ka dagaalamay ee argagixisada al-shabaab arrintaasi markii ay dhacday kadib Dahabshiil ayaa u tegay qoyskii ay ka dhalatay Saada Cali Warsame oo ahayd fanaanad Soomaali waxa uu hortooda uga dhaartay inuusan inantooda dilin isla markaasina uusan shaqo ku lahayn dilkaasi dhacay ee uu Daahir Calasow abaabulay arrintaasi oo dhan isla markaasina uu ka dhiganayo dacaayad uu ku dacaayadeynayo shirkadda Dahabshiil Group oo ah shirkad weyn oo geyga Soomaalida iyo caalamkaba ka shaqeysa isla markaasina kala daabusho lacagaha loo soo dirayo dalka iyo kuwa la dirayo waad naqlayseen dhaartii dhacdo konton dhaarood ah oo runtii dhaarmaynahay sharcina ah waxaan rabnaa in la qanco arrintaas inay soo afkooda u baahannahay si wanaagsan oo sharaf leh buu noogu dhacay cuqdad baan nagu jirtay waanu xanuunsanaynay dilay kule beesha sambuur baanu u bugnay hadda way naga baxda waanu ka bogsanay ilma cali warsame anaa u weyn waa ila qaban iyaguna waa ku qanceen waxa weeye si wanaagsan baanu ugu qancnay si wanaagsan baanu haddii kule arrintaasi inoogu dhacday أول هربا وحنا نصين ضد بعيدين كسر قبنا يسألوا مرحومنا كسر قبنا ذاتك كسر قبنا يندي كبح وعمل لنا يا مانتا intaasi kadib Daahir Calasow ayaa u jeestay dhanka baraha bulshada isagoo cid kasta oo uu ataagaya halkaasi ka ataaga isla markaasina cidda uu fahmi waayo si xun u ataaga qabiil ahaanna geliya marka dambana ay isaga arrinta ku biyo shubato oo ama dila ama la heshiiya maalmihii ugu dambeeyayna waxaa socday arrimo ka dhaxeeya Sharma Boy iyo Daahir Calasow sidoo kale waxaan ka maqnayn gabdhaha Soomaaliyeed oo uu cay iyo aflagaadamana awaalo oo aan meel gaasdiisnayn u geysto gabdhaha Soomaali isla markaasina uu halkaasi ku ceebay Facebook wuxuu ku haystaa ku dhawaad half million followers kuwaasi oo qaar ku taageeraan arrimaha uu samaynayo kuwana kaga soo horjeestaan isla markaasina ay u sheegaan wixii wanaag iyo talaa balse waxaan ka codsan lahaa dadka ku xidhan bartiisa inay kala noqdaan follow si uu u ogaado inuu qaldan yahay oo aan laga samayn karin lacago waxyaabo aan macquul ahayn isla markaasina